السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada videoga labaad ee casharka koobaad marka casharkan insha Allah tacaala waa sharaxi doonaa waa kormari doonaa waa casharka koobaad oo horodhac ah ee horodhaca forex introduction to forex Kurwena Academy walaalyaal kusoo dhawaada Kurwena Academy mar kale aad iyo aad u mahadsantiin inaad nagu soo biirtaan muxuu aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqotaan community-gan insha Allah tacaala si fiican ayaan idin caawinayna inaad yoolalkiina gaartaan hadafkeenu waa inaanu soo saarnaa ganacsato xirfadlayaal alxamdulillah hadda already ardayda muxuu markii ugu horeysay nagu soo biireen meel fiican bay marayaan kuwa live bay bilaabeen kuwana way u dhow yihiin inay si toos suuqa inay ka shaqeystaan inay bilaabaan aad iyo aad ugu dhow yihiin marka insha Allah tacaala koorsada ugu fiican ee Soomaaliga afkeena Soomaaliga ku baxda baad gadatay taas aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aad kaaga mahadcelinaa insha Allah tacaala waana ku caawinayna inaad yoolkaaga gaartid marka magacaygu waa Bashiir Faarax waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaysan aqoon marka waxaan rabaa inaan isbarano magacaygu waa Bashiir Faarax waxaan ahay ganacsade ka shaqeysta suuqan forex waxaana ku jira suuqan forex ilaa iyo 5 sano la soo dhaafay hadda idin sheego xirfadeeda kaliya waxa kaloo aan muxuu ahaa sameeyo ama aan bartay jaamacad ilaa heer master waxaan ka gaaray chemical engineer marka chemical engineer waa ahay laakiin si toos ah forex baa uga shaqeystaa chemical engineer kuma shaqeeyo marka waxaan rabaa inaan idinla wadaago waayo aragnimadeeda iyo khibradda aan ka leeyahay gudaha suuqyada forex insha Allah tacaala marka Kurwena Academy casharada aad ka baran doontid Kurwena Academy waa kuwan oo ilaa 14 kan cashar kan ugu horeeya oo hadda ah midka hadda daawanaysid oo ah horodhac cilmu nafs waxa dhigi kara casharka ugu muhiimsan marka casharkan insha Allah tacaala aad iyo aad dhaafin si fiican u fahan ilaa si fiican u fahantaa dhaafin aaladaha muhiimka marka waxa idin bari doonaa aaladayaasha muhiimka sida trading view evernote notion waxyaalahaas oo dhan insha Allah waa idin bari doonaa falanqeynta farsamada marka falanqeynta farsamada ama technical analysis dadka badankood si u yaqaanaan waxa waaye waa sida suuqa loo aan u falanqeyno waaye waana farsamada isticmaal taas oo ku bari doonaa insha Allah laba cashar leedahay midda koobaad waa casharka afaraad maareynta halista risk management tan aad iyo aad muhiim tahay laftirkeeda waxaa dhigi karaa markii cilmu nafs laga soo tago tan maareynta halista aad iyo aad muhiim tahay iyo waxayba ka muhiimsan tahay istiraatiijiyada way ka muhiimsan tahay aaladaha iyo falanqeynta farsamada way ka muhiimsan tahay marka maareynta halista tan si fiican u fahan had dhaafin laftirkeeda suurtagalnimada ama probability waxa loo yaqaano casharka lixaad waaye dilaalka sida dilaal u dooran lahayd muxuu ahaa dilaalo qaarkood magacyadooda waa idin sheegay kuwa dooran kartiin waxayna ku xiran tahay meesha joogtid casharka sideedaad waa journaalka iyo qoritaanka journaalka aad iyo aad tan muhiim u tahay casharka sagaalaad oo ah istiraatiijiyada koobaad kan tobanaad oo ah istiraatiijiyada labaad casharka 11aad waa falanqeynta farsamada labaad 2.0 casharka 12aad ganacsiga maalinlaha marka suuqan muxuu ahaa istiraatiiji walba waxaa loo kala qaybin karaa laba istiraatiijiyaal mid waxa waaye waa mid waqtiyada dhaadheer maalinlaha bas isticmaalaysaa ganacsiga waxa ku jiri kartaa ilaa iyo maalmo ilaa isbuucyo midna waxa waaye waxa loo yaqaan ganacsiga maalinlaha ama day trading marka tana ku baran doontaa ganacsiga maalinlaha waa waqtiyada gaagaaban badan loo isticmaalaa istiraatiijiyada saddexaad iyo istiraatiijiyada afraad waa casharada ugu dambeeyo marka insha Allah tacaala intaan casharo muhiim ah idin soo socdo 14 chapter waxaana idin ballan qaadayaa hadda waxaan oo dhan casharadan dhan si fiican u fahantaan inaad noqonaysid ganacsade dhammaystiran suuqaana si toos ah uga faa'iideysto insha Allah tacaala guda galno marka la kusoo dhawo casharka koobaad waxaa qaadataa qoraalo badan su'aalihiina na soo weydiiya ama Instagram WhatsApp groupka ama cashar walba hoostiisana waa kusoo qoran kartaa insha Allah tacaala hadda idin tusiyo hadda casharka koobaad cilmu nafsiga waa meeshan camal casharka labaad marka waxaa ku qoran kartaa su'aalihiina meeshan inta commentiga waa idinkaga jawaabaya insha Allah tacaala dhammaan casharada in ka badan hal jeer sida videoga ugu horeeyay introductionka ay idinkugu sheegay 3 jeer dhamaya hal jeer iyo 2 jeer dhameeyay 3 jeer ku celceliya casharada insha Allah marka casharka koobaad maxaan uga hadli doonaa waa maxay forex baa baran doontaa forex waxay tahay si u shaqeyso
sideeda lacagood ee adduunyada ugu waaweyn, waa maxay pip, waa maxay faa'iidooyinka ganacsiga forex iyo xeerka 90 iyo mowduucyo kale aad iyo aad muhiim u ah. marka waa maxay forex waa iibsashada iyo iibinta lacagaha khalaad, waana suuq caalami ah oo shaqeeya 24 saac maalintii 5 maalmood isbuuca la shaqeysto. marka isniinta ilaa jimcaha buu furan yahay 24 saac. adigoo ka tirsan Kurwene Academy waxaa lagu tusi doonaa sida looga ganacsado suuqa forex si faa'iido leh, weliba si joogto ahna. marka waxaan rabaa inaan idiin sheego suuqan forex qof aan hal xabo ka aqoon hal faa'iido wuu samayn karaa. qof xoogaa bartay faa'iido marar wuu samayn karaa, laakiin waxa aad iyo aad u adag waxa waaye faa'iido si joogto in loo sameeyo. taasna insha Allah waa idin bari doonaa markii aad noqotay ganacsado dhammaystiran. marka waa maxay 8 lacagood ee adduunyada ugu waaweyn? waa kuwan, waa 8 wadan iyo lacagahooda. marka US dollarka oo Mareykanka, euro oo wadamada Yurub qaarkood, Great British Pound ama Great British Sterling oo laga leeyahay wadanka Ingiriiska, Swiss franc oo laga leeyahay wadanka Switzerland, Australian dollar oo laga leeyahay Australia, Canadian dollar oo laga leeyahay Canada, New Zealand dollar oo laga leeyahay wadanka New Zealand oo Australia u dhow, iyo Japanese yen oo laga leeyahay wadanka Japan. marka waa 8 lacagood ugu waaweyn, waa 8 lacagood oo ka ganacsano. marka waa kuwaasa. waa maxay lacagaha lamaan? marka dad badan tan wax aysan fahansaneyn waa maxay lacagaha lamaan, currency pair. marka lacagaha lamaan waxa waaye waa laba lacagood oo la isbarbar dhigo. suuqa markaa furtid, trading view markaa furtid, waxaa arkaysaa laba lacagood sida tan camal US dollar CAD la isbarbar dhigay oo qiimahooda la isbarbar dhigayo. marka waa lacago lamaan, waa labo lacagood. lacagaha lamaan qiimahooda oo la isbarbar dhigayo ayaa rabnaa inaan ka faa'iideysano. marka waxa waaye waxa ka ganacsanayno. haddaan tusaale in siino qiimaha sarifka ee US dollar CAD, taariikhda qoraalkan markaan qorayay waxa uu ahaa 1.32. marka qiimaha US dollar CAD waxa waaye qiimihiisa markii qoraalka la qoraya ama casharkan aan qorayay 1.32. hadda waa ka duwan yahay. lacagta ugu horeysa labada lacagood, marka labadan lacagood tan ugu horeysa waa USD, qiimaheedu mar walba waxa waaye 1. marka labada lacagood mar walba lacagta ugu horeysa qiimaheeda waa 1 marka la barbar dhigo lacagta labaad. markii loo barbar dhigo lacagtan, tan qiimaheedu waa 1, lacagta labaad qiimaheeduna waa qiimaha ganacsiga ee hadda jiro. marka taas waxa waaye US dollarka USD waxay la mid tahay 1, CAD-ka waxay la mid tahay 1.32 ama lacagta meesha ay ku qoran tahay trading view markaa fiirinaysid. marka tusaale kale waa idin siin doonaa insha Allah. hadda idin siinayaaba haddaan furo trading view. high time frames aadno. aadna waqti gaaban iska dhahno. marka saa u jeedaan tusaale kale aan siinayaa oo ah Australian dollar iyo US dollar. Australian dollar US dollar waxa waaye waa markii Australian dollarkan iyo US dollar la isbarbar dhigo qiimaheeda. marka tan macnaheedu waxa waaye Australian dollarka oo ah lacagta ugu horeyso qiimaheeda waxay la mid tahay 1, lacagta labaad oo ah US dollarna waxay la mid tahay meesha waxaan ku qoran oo ah 0.61. marka taas macnaheedu waxa waaye $1 markaa sariifanaysid waxaa helaysaa hadda qiimaha suuqa meesha jooga waxaa helaysaa 0.616 ama waxaa helaysaa 61 senti oo ah oo US dollar. intaas waa wax kala ma. marka aan ka socono insha Allah. haddaad si fiican wali u fahmin commentiga su'aasha soo dhigo. marka 8 lacagood ee adduunka ugu waaweyn markii la maano ama la isbarbar dhigo waxaad helaysaa 28 lamaanayaal. 8 lacagood markii la iska soo horjeediyo waxaa helaysaa 28 lacagood. waana inta aan ka shaqeysano, waana inta ugu fiican. waxay ugu fiican tahay markii aad dilaalkaaga ka ganacsanaysid, qarashka ama lacagta dilaalkaaga ka qaadanayo mar walba lacagahan way ka yar yihiin markii loo barbar dhigo lacagaha kale ee adduunyada.
oo yaryarka. marka 28kan watchlistiga ku darso intaana ka shaqeyso. laba kale oo ku dari karto ayakana fiican waxa waaye waa gold iyo silver. waa kuwana marka gold waxa waaye suu qoran waa sidan XAU USD waa gold, iyo silver oo ah XAG USD. labadan oo ku darsan kartaa ayakana had iyo mar walba way lacagta inta laga qaadayo ama waxa loo yaqaan spreadka wuu yar yahay. marka insha Allah ma ka socon aan ka gudubno. marka maxaan sameynaynaa marka ka ganacsanayno lacagaha lamaan? markaad tusaale hadda US dollarka marka la isticmaalayna, markaad iska iibinaysid USD CAD waxaad ku ganacsanaysaa adigoo rajaynayo in qiimaha dollarka uu hoos u dhacayo, kan CAD-kana uu kor u dhacayo, uu kor u kici doona dhehe. marka hadda in kugu soo celiyo tusaale ahaan markaad iibinaysid US dollar CAD, rajadaadu waxay tahay in qiimaha CAD-ka uu kor u kacayo, kan dollarka US dollarkana uu hoos u dhici doono. marka la tusaale inta idinka tusinaya USD CAD waa kana. marka USD CAD tusaale hadda in si hadaan dhahno meelahan camal ka galaysa suuqa oo waxa leedahay waa iibinaya. marka meelahan ka iibinaysid waxaad rajaynaysaa in qiimaha US dollarka, qiimaha lacagta hore ay hoos u dhici doonto markii loo barbar dhigo qiimaha CAD. taas macnaheedu waxa waaye CAD-ka ka xoog badanayo US dollar. intaas waa wax kale maahan. marka taas waa markaad iibinaysid. markaad iibsanaysidna waa opposite-ka, waa sida kale waa way. markaad iibsanaysid aa dhahay US dollar CAD, tan macnaheedu waxa waaye long ama waa iibsanaysaa US dollar CAD, waxaad ku ganacsanaysaa adigoo rajaynaya in qiimaha dollarka US dollarka uu kor u kici doono, kan CAD-kana uu hoos u dhici doono. marka hadda meelahan camal waa meel fiican laga iibsado. markaa iibsanaysid oo inta camal ka iibsanaysid US dollar CAD-ka, tan macnaheedu waxa waaye waxaad rajaynaysaa in qiimaha US dollarka uu ka xoog badan doono qiimaha Canadian dollarka. waxaad ku ganacsanaysaa lacagaha lamaan adiga oo rajaynaya in qiimaha hadda uu wax ka bedelmi doono, una kici doono jihada aad qeexday. marka mar walba aad ka ganacsanaysa lamaanayaasha waxaad rajaynaysaa in qiimaha uu aadi doono ama uu isbedeli doono, uuna isku bedeli doono dhinaca aad falanqaysa ama dhinaca aad qeexday, jihada aad qeexday. markaad sidaas samayso waxaad awood u leedahay inaad ka faa'iidaysato dhaqdhaqaaqyada ka dhaca suuqa gudihiisa maalin walba. marka hadda waxaa rabaa inaa insha Allah dadka badankood waxaysan fahansaneen baa rabaa inaa idin fahansiiyo 100% aa dhehe 90% dadka badankood waxaysan fahansaneen. tusaale marka aniga hadda markii aan suuqa inta camal ka galayo, haddaa rabaa inaa inta ka iibsado ma iska galayo oo ma iska gali karo, waa inaa dilaalkayga u sheegaa order adiga dhaha intaa rabaa inaa ka galo. marka inta ka galayo waa inuu jiraa qof suuqa meeshan iska iibinayo oo rabo inuu suuqa ka baxo. marka aniga qofkaasaa ka iibsanaya. marka iibsado profit suuqa mar walbo dhinacayga u socdo, jihadeeda u socdo, faa'iidadeeda way sii badanaysaa. markii aan gaaro bartilmaameedkayga faa'iido, hadda meelahan camal soo gaarno, waxaan leeyahay waa iska iibinaya. marka iska iibinayo oo rabo inaan suuqa ka baxo waa inuu jiraa qof suuqa asagana rabo inuu markaas soo galo oo iga iibsan karo. markaas markuu iga iibsado aniga ka baxaya, profitkayga iyo faa'iidadeeda qaadanaya. tan waa wax aysan dadka badankood fahansaneen. marka hadduu muxuu ahaa volume-ka ama inta qof suuqa ku jirta uu yar yahay, ma dhacdo badanaa suuqan forex-ka aad iyo aad u weyn yahay. mar walba meel walba dad baa ku jiro, saa u jeedaan dhaqdhaqaaq walba meel macnaheedu waxa waaye waa dad ku jiro oo ka ganacsanaya lacaga kala bedbedelanaya suuqa. laakiin kasoo qaad inuusan qof jirin levelkan rabo inuu kasoo galo, marka muxuu ahaa brokerkiga ama dilaalkiga wuxuu sameynayaa meesha ugu soo dhow, ha noqoto meeshan ama ha noqoto meeshan, oo qof laga heli karo rabo inuu suuqa kasoo galo ayuu iga saarayaa. tan waa waxaysan dadka badankood fahansaneen. haddaad weli fahmin insha Allah commentiga su-aal kusoo qor ama muxuu ahaa WhatsApp groupka su-aashaada soo dhigo. marka waa sii wadanaynaa. waxaan sameynaa markii aad suuqa ka ganacsanaysid lacagaha lamaan.
iibsashada marka waxaa rabaa inaan idin baro xarafyo ay dadka badankood isticmaalaan. marka iibsashada markii aad wax iibsanaysid meel hoose ka iibsanaysid waa mid dheer, waa waxa loo yaqaano long ama buy. iibinta markii aad rabtid inaad suuqa iibisid oo aad rabtid qiimaha suuqa inuu hoos u dhaco waa mid gaaban, waa waxa loo yaqaano short. marka tanna ku celi meeshiisa long ama bull. tan bull waa dibi, short ama bear marka waa wax badan dadka isticmaalaan. bearish market waa suuq hoos u dhaca, bullish market waa suuq kor u socda. markaad iibinaysid USD CAD short, markaad iibinaysid hoos ula dhacaysid waxaad ku ganacsanaysaa adigoo rajaynaya in qiimaha US dollarka uu hoos u dhici doono markii loo barbar dhigo qiimaha CAD-ka. markaad iibsanaysidna US dollar CAD ama aad rabtid inuu kor aado oo buy leedahay long, waxaad ku ganacsanaysaa adigoo rajaynaya in qiimaha USD-ga uu kor u kici doono markii loo barbar dhigo qiimaha CAD-ka. markaa ka socono marka hadda waxaa baran doontaa insha Allah waa wax aad iyo aad muhiim u ah. pips waa maxay? pip waa meeleynta afaraad ee qiimaha labada lacagood. waa unug loogu talagalay cabirada dhaqdhaqaaqa yaryar ee qiimaha ka dhaca suuqa forex-ka. marka tusaale qiimaha USD CAD-ka waa 1.32. marka aan saxo meeshan marka qiimaha USD CAD-ka waa 1.32 markaad iibsatid long. marka waxaa ka iibsanaysay markuu qiimaha meeshan joogay. maalmaha soo socdo tan aan saxo igraalahada maalmaha soo socdo qiimaha wuxuu u kacay ilaa 1.35. marka aynu xisaabino okay ma garanayo tan meesha ka imaatay igraalahada mar kale ka saaro. marka waxaa ka iibsatay 1.32 ka iibsatay, qiimaha wuxuu gaaray 1.35. markii labadan la kala jaro waxaa kuu soo baxayo 0.03. marka tan waxaa waaye waa qiimaha wuxuu sameeyay dhaqdhaqaaq ilaa 0.03 ama 0.3 ama 300 pip. marka pipka waa unug loo isticmaalo looguna talagalay cabirada suuqa dhaqdhaqaaqa yararka ee suuqa forex-ka, wuxuuna ka bilowdaa waa meeleynta afaraad. markii aad pips tirinaysid dhibicdan yaa 4 jeer inta u dhaafaysaa intaa kasoo bilaabaysaa tiradaas lacagaha oo dhan ilaa markii laga reebo lacag walboo la lamaanan JPY. lacag walboo la lamaanan lacagtan Japanese yen-ka hadda tusaale ahaan midaan lacag walboo JPY lamaanan aad dhehee markii aad pipka tirinaysid waxaad kasoo bilaabaysaa meeleynta labaad yaa kasoo bilaabay. laakiin lacag walboo kale mid walba waxaad kasoo bilaabaysaa meeleynta afaraad. marka waa idin tusaaleynaya insha Allah. hadda waxaa soo qaadanayna toolkan insha Allah si fiican oo toolka u baran doontaa. hadda waxaa rabaa inaad pips idin baro leh wax kale ma rabo. marka tan waa USD CAD. haddii aad rabtid inaad halis gelisid aad dhahno 100 pip, marka tick inta 100 ku qoranaysaa pipka markii aad tirinayso waxaa ka helaysaa meeshaan xaggaanu mar walba ku qoraya 100 pip waaye. okay sidee buu 100 pip u yahay aan sameyno. waa labadan lacag labadana kala jiraysaa 1.3938 iyo waxaa ka jiraysaa tan 1.3838. marka waxay helaysaa waxaa kuu soo laabanayo 0.01. idin tuso calculator la soo baxno. waxaa kala jaraysaa labadan qiimaha gelitaanka oo ah meesha ku qoranta entry price copy dhahno inta paste ku leenahay yaa waxaa ka jaraysaa qiimaha stop loss-ka ama meesha aad rabtid inuu suuqa markuu soo gaaro uu kaa saaro khasaaro uu kaaga saaro.
eber dhibic eber halaa soo haraysa oo ah 100 bib. marka mar walba waa meesha markii aad tirinaysa pipka waxaa kasoo bilaabaysaa meeleynta afaraad, xaggaana kasoo bilaabaysaa numberkan meeleynta afaraad. meeshaan haddii uu hal noqdo 10 bib noqonay, tan 5 hadduu ka tago 6 uu noqdo 100 bib baan kor aadnay, meeshaan 100 bib baa kor ka aadnay. tan waa sida loo xisaabiyo pips markii laga reebo lacagaha JPY. lacagaha JPY waxaa ka bilaabaysaa tirinta meeleynta labaad ka bilaabaysaa. marka aan ka socono insha Allah. waa maxay faa'iidooyinka ganacsiga forex? marka waxay bixisaa qaab nololeed taas oo marka hore u muuqata mid aanay heli karin dadka badankood. waxaa helaysaa waqti badan, helaysaa lacaga badan baa samayn kartaa, shaqo maalin walba inaad ku leedahay qasab ma ahan. waa faa'iidooyinka qaar ka mid ah. istiraatiijiyadu waxay ku ogolaanaysaa inaad siiso qaabka shakhsiyadaada iyo qaab nololeedkaaga si aad u doorato inta jeer ee aad rabto inaad joogtid computerkaaga. marka aniga saa idin sheegay 4 istiraatiiji baa ardayda barnaa. 2 waa istiraatiijiyad dadka loogu talagalay dadka aan rabin in mar walba suuqa ay waqti badan siiyaan ee dhowr saacadood maalintii aan dhahay isbuucii dhowr saacadood siiyo. dadkaas waxay isticmaali karaan 2 istiraatiiji ugu horeyso. dadka raba inay maalin walba dhowr saac siiyaan oo faa'iidooyinkoodana ay badan karto. faa'iidooyinka way badan kartaa, sidoo kale khasaaraha iyo halistana way badan kartaa, laakiin faa'iidooyinka laga sameyn karo aad iyo aad u fiican tahay. waxay bixin kartaa xorriyad dhaqaale, financial freedom waxa loo yaqaano. financial freedom dadka 99% adduunyada weligood ma gaaraan. meesha doontaad aadi kartaa, meesha doontaa ku noolaan kartaa. marka waa fursad aad iyo aad caalami u ah, fursad aan raba inaan idinkaga faa'iideeyo insha Allah tacaala. aniga hadda aad iyo aad waxaa ugu faraxsanahay inaan qasab inaysan igu ahayn inaan shaqo maalin walba u kala taas qasab ma igu ahan, alxamdulillah. marka aniga hamigaygana waxaa waaye ardayda inaan meesha soo gaarsiiyo. marka hadda waxaan rabaa inaan idin baro xeerka 90-90-90. waa xeer aad iyo aad muhiim u ah. xeerkan markii la fasiro waa intaan, waa sadarkan ugu horeeya. 90% ganacsatada cusub ee forex waxay lumin doonaan 90% dheelitirka ama dakhligooda akoonka ama lacagta ay haystaan 90 maalmood ee ugu horeyso ganacsigooda. marka xeerkan waa xeer jiro, waa xeer waa xeer ay tusaalooyin badan mar walba dilaal walba aad gashid ay website-kooda kusoo qorayaan. waxay ku tusinayaan brokerkaas ama dilaalkaas hadduu yahay dilaal sharciga raaco, website-kiisa meesha ugu horeeya waxay kusoo qoraan inta ganacsato ee khasaarto bay kusoo qoraan. hadda rabaa inaad tusaalahaas intusiyo. hadda aniga brokerka isticmaalo oo ah brokerada adduunyada kuwa ugu waaweyn ku jiro fxcm.com waa idin tusinayaa inta khasaarto 70% u dhado. waa kana meeshaan ay ku qorayaan inta qof oo lacag lose gareyso 69-66. marka 90% waa guud ahaan suuqyadan. 90% guud ahaan suuqyadan dadka cusub waxay lumin doonaan 90% dheelitirkooda iyo iyagoo luminaya taas 90 maalmood ugu horeeya ee 3 bilood ugu horeyso. qadarka aan kala joogsiga lahayn ee ganacsatada ayaa ka ganacsato iyagoon wax khatar ah maareynin. khasaaro joogsi ma isticmaalaan, istiraatiijiyad rasmi ah ma isticmaalayaan. marka 90% numberkan aadka u weyn waxaa la isku darayaa, waa dad badan baa la isku darayaa. dad badan oona isticmaalin si fiican suuqa maysan u baran, may fahansana suuqa way ku cusub yihiin. waxa la dhaho probability ma yaqaanaan, psychology iyo maskaxdooda si u shaqeeyaan ma yaqaanaan. marka waxaasoo dhan baa la isku dardarayaa. laakiin Kurweyne Academy, ardayda Kurweyne Academy wax walba bareenaa. wax walba muhiim ah si ay u noqdaan ganacsato dhammaystiran ayaa suuqa baraynaa. taasna waxay keenaysaa in numberkaas uu aad iyo aad u bedelmi doono. marka Kurweyne Academy waxay ku baraysaa sida loo yareeyo khasaaraha, loona badin karo faa'iidadaada iyada oo la isticmaalayo farsamooyin kala duwan. waxa ugu badan ee aad ku waayi karto
boos kasta waxa ugu weyn ama ganacsi walbo geshid waxa ugu weyn oo weyn karto haddii aad raacdid istiraatiijiyadeena iyo casharadena waxa waaye 1% inta kugu jirto dheelitirkaaga ama akoonkaaga 1% baa weyn kartaa. marka dadka badankood meeshay 90% ka khasaarinayaan, adiga ganacsi walba ugu badnaan 1% baa ka khasaaraya. waa taas haddii aad raacdid istiraatiijiyadeena, waa haddii aad maareysid halista sida aan ku barayno, waa haddii aad si fiican u fahantid psychology iyo cilmu nafs casharka labaad iyo probability ama suurtagalnimada. marka gacan fiican baa ku jirtaan, taasaan rabaa inaan idiin sheego, gacan fiican baan ku jirtaan insha Allah tacaala. tusaale 1% halis, markii aad 1% halis gelisid adigoo haysto tusaale ahaan $10,000, taas macnaheedu waxa waaye $100,000 ayaa halis ku jirta. 10 ganacsi haddaad qaadatid, haddaad khasaartid 5 ka mid ah ganacsiyadaas gashay, taas macnaheedu waxa waaye 5% ayaa khasaartay. istiraatiijiyada isku celcelis ahaan halista ama abaalmarinta, taas waa waxa barantood waxa loo yaqaan risk reward ratio, waxa waaye 3 ilaa 1. taas macnaheedu waxa waaye 1% mar walba 1% aad halis gelisid 3% ayaa faa'iideysaa. haddii aad faa'iidid 5 ganacsi oo kale, taas macnaheedu waxa waaye 15% ayaa faa'iiday. 15% laga jaray 5%, taas macnaheedu waxa waaye waxaa faa'iidi kartaa 10% bil walba adigoo isticmaalaya istiraatiijiyadeena isku celcelis ahaan. istiraatiijiyadeena waxay ku siinaysaa fursado aad faa'iidi kartid ilaa 20%. waxaana ma ahan wax ay 99% dadka samayn karaan. waxaa sameeyo waxaan waa 1% ganacsatada adduunyada la isku daro dhan ka ganacsato suuqyadan 1% ayaa nambaradan kala sameeyso. marka aan sii socono ka go'naasho, marka FX waxay si adag u tijaabinaysaa go'aankaaga iyo dulqaadkaaga. mararka qaarkood waxaad su'aali doontaa awoodda go'aan qaadashadaada. dhab ahaantii waxay ka mid tahay wadooyinka ugu fiican ee lagu tababaro horumarinta naftaada ama waxa loo yaqaano self development. gali waqti badan marka hore, waxayna noqonaysaa arrin sahlan. marka waqti badan haddaad gelisid casharada si fiican u fahantid, casharada Kurweyn Academy wuxuu kaa qaadi doonaa ganacsado bilow ah ilaa ganacsade dhammaystiran, aamin leh, maskaxiyan degan, maskaxiyan adag, dhexdhexaad ah, fudeed aana ku jirin. ganacsatada xirfadleyda ahi waxay ku qaadan kartaa wax ka yar 1 saac maalintii markay sameynayaan falanqeyntooda. shaqada waa in la geliyaa si ay marka haddaad rabtid maalintii inaad 1 saac gelisid markii aad sameynayso falanqeyntaada, inta ugu horeyso aad dhaho 6 bilood ugu horeysa ama sanadka ugu horeeya waa inaad waqti badan gelisid, waa inaad si fiican u baratid casharada, waa inaad si fiican practice badan u sameysid. faa'iidada iyo faa'iidooyinka ganacsiga FX-ka waxay aad ugu badan tahay khasaaraha. marka waxay aad uga badan tahay khasaaraha iyo dhibaatooyinka kaasoo gaari karo FX-ka haddii aad si habboon u baratid. waa taas waa difference-ka, waa haddii aad si habboon u baratid ganacsigan. markii aad iibsatay koorsadan, waxaad naftaada kor ugu qaaday heer kale oo ka sarreysa cudur daarada. marka ma tihid qof cudur daaranaya oo dhahaya waxa way igu adag tahay, ama xadidada aamin la'aanta kuwa dhaho ma awoodi karno inaan casharkan gadano, inaan koorsada kusoo biirno. marka adiga dadkaas ka mid ma tihid. waxaan ku leenahay horumar wanaagsan, fursado cusub insha Allah tacaala, meel fiican baa gaari doontaa. laakiin waa inaad la imaatid ka go'naasho, inaad hubisid ama inaad hubsatid ama inaad aamintid inaad gaari doontid hamiga aad suuqan ka leedahay insha Allah tacaala. faa'iidooyinka laga fili karo suuqan sida hore in kugu sheegay, faa'iidooyinka waxay ku saleysan yihiin dhaqaalahaaga, aad awooddo inaad geliso ganacsigan iyo heer xirfadeedkaaga. ujeedada laga leeyahay FX ma ahan in la sameeyo milyan hal habeen, waa ganacsi laga sameyn karo faa'iidooyin yaryar oo joogto ah marka dulqaada insha Allah. xirfadaada haddaa kor geysid,
hadda xataa haddaad lacag badan haysan lacagta ayadoo ku soo raajtaa arkaysaa. haddii aad natiijooyin fiican la imaatid oo aad xirfadle noqotid lacag ma weynaysid, lacag way dhooban tahay, dad badanaa lacag kuula imaanayo. marka faa'iidooyinka laga filan karo suuqan haddaan sii wadno, faa'iidooyinka waxay saa hore u dhahay dhaqaalaha haysatay ku salaysan yihiin. ujeedada laga leeyahay suuqan ma ahan inaa 1 milyan ku samaysid hal habeen, waa ganacsi laga samayn karo faa'iidooyin yaryar oo joogto ah. faa'iido kasta oo aad samaysid wuxuu noqon doonaa boqolkiiba qayb ka mid ah maalgashigaaga. ganacsatada sare ee istiraatiijiyadda isticmaasho waxay sameeyaan si joogto ah, weliba waxa waaye waa natiijooyin ka badan boqolkiiba 15 ilaa 25, ma badna 25 dadka gaara, laakiin waa dadka hadda sare. xadka hoosena waxa waaye boqolkiiba 5 ilaa boqolkiiba 10. marka hadda aan isticmaalno meel dhexdhexe oo boqolkiiba 10 aan isticmaalno, waa idin tusiyo waxa la samayn karo adigoo kaliya ku bilaabaya boqolkiiba 10. website waxaa tegaynaa lagu sameeyo compound interest calculator. marka aniga ma indhahayo $100 ku bilaabaysaa, $1,000 gaarsiinaysaa bisha. waxaas ganacsi waxaas laga sameeyo ma jiro. waxaan rabaa inaad ganacsigan u isticmaashaan si ganacsi bil walba aad ku tashan kartid, sanad walba lacaga badan aad ka samayn kartaa. idin tusiyo waxa kaa soo geli karo adoo ku bilaabaya $10,000 oo keliya. insha allah 10,000 ku bilaabaysaa, boqolkiiba 10 marka sanadkii taas waxay u dhigmanaysaa boqolkiiba 20, 12 bilood sanadkii. waxaan xisaabin doonaa insha allah 12 bilood compound daily. marka 10,000 adoo ku bilaabay bishii sameynayo boqolkiiba 10, 12 bilood sanad gudihiis intee gaarsiin kartaa? 33 guna gaarsiin kartaa. waa lacag aad iyo aad u fiican, waa dakhli aad iyo aad u fiican haddaa dhahno sanadka labaad. marka 2 sano gudahood intee baa gaari kartaa? aragno 2 sano gudahood 10,000 boqol ku gaarsiin kartaa. marka saa u jeedaan waa faa'iido aad iyo aad u badan, waa faa'iido aad iyo aad u fiican. insha allah tacaala waa wax la samayn karo boqolkiiba 100 samayn kartaan haddaa waqti gelisaan casharada, haddaad ka faa'iidaysataan adeegyadan insha allah tacaala. ardayda ama dadka shaqaysto sidee waqti ugu heli karaan inay bartaan ganacsigan? marka dadka qaarkood waqti badan ma hayaan. runtu waxay tahay qof walba wuxuu haystaa waqti uu ku sameeyo waxa muhiimka u ah. dhammaanteed waxay ku saabsan tahay muhiimadda. wax walba waxay ku saabsan tahay muhiimadda. wax hadduusan muhiim ahayn ma sameynaysa. hadduu muhiim ku tahay waqti waa u helaya boqolkiiba 100. dhammaanteen waxaan haysanaa waqti, waxaan haynaa mudnaano kala duwan ama waxyaalo mudan oo kala duwan, muhiimo kala duwan baa haysanaa. dadka qaarkood waa familka aad iyo aad muhiim ah. dadka qaarkood waa ganacsato ama dukaami leeyihiin ama waxay leeyihiin shirkado kale, muhiim bay u tahay. marka haddii ay dhab kaa tahay inaad ku guulaysato ganacsigan forexka, waa inaad diyaarisid waqti, waa inaad naftaada u sheegtid, waa inaad waqti u heshid. waa muhiim taas. kobcinta shakhsiyeed, dejinta hadafka iyo aaladaha kale waxay qayb weyn ka noqdaan noqnoqoshada FX-ka ganacsada guulaysto. marka waa inaad kobcisid shakhsiyadkaada, waa inaad dejisid hadafyo, waa inaad isticmaashid aalado kala duwan, waa inaad samaysid wax loo yaqaano time management, waa inaad waqtiga maaraysid, waa inaad ugu yaraan usbuucii u heshid 10 saacadood, maalintii 1 ilaa 2 saacadood hadaa u heshid casharadan. waxaa hubaa inaad meel fiican ka gaari doontid insha allah tacaala suuqan. ujeedada iyo hadafka Kurweyne Academy waxay tahay inaan diyaarino ganacsato suuqan FX-ka ka guulaysto, guul sare ka gaarto, si joogta ahna isna dhiirigeliso. marka insha allah tacaala waxaan aad iyo aad u rajeynayaa in casharkan si fiican uga faa'iidaysateen. insha allah tacaala ku cesho waxyaalo badan baa ka hadalnay, notes badan qaado, PDFs-ka akhri, videoska ugu yaraan 3 jeer daawo. waxaa idin leeyahay walaalayaal, guulaysta insha allah tacaala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.